الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ما بعد، ودرسيني سديديتناد كمد دروستي تفسير القرآن waxaynu ka bilaabaynaa aayadda 17 min suurati Yunus, wuxuuna ku ogyahay aayadda 89 ee isla suuradda. Allah wuxuu subhanahu واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. واتل عليهم نبي محمد وكد الأخري نما كان مشركين عليه الصلاة والسلام نبأ نوح وركيسي كد الأخري إذ قور وركي حل وركي كد الأخري قالوا كيري لقومه تلكي نوح كيري يا قوم تلكيو إن كان هدو يهي كبرا مدكوين هذي عليكم كركينا مقامي نغانتي إذا نغاهي دحدينا إيا وتذكيري وان انت إذا آن كوانين بآيات الله إلهي آيات كيسا فعلى الله ألا كركيسا تشيسان توكلت تلسارت فأجمعوا قوان صدى أمركم تلذين قوان صدى وشركاءكم شركذين كواد إلهي وحلو ذاتي سين إذنكو وطه كوانا كحيست ثم دباتنا لا يكن يوصن هان أمركم أرنكين يوصن نغن عليكم كركين غمة مد قرصون أو أن عدين يوصن نغن أرنتين عديستا ثم دباتنا اقضوا يقفلي إلي أنيقا وحاد قامسين ولا تنظروني هنئي كاذنين هيسوين فإن توليتم هدات شيستان وهذه مانكي يدين تاردين كينا ديدين وقاذا فما سألتكم إذن مويديسا من أجر وح أبا القدى وح مشاهرة إذنكم مويديسا على تبليغ الرسالة إن أجري أبا الكيقو iyo mushaqaayadayda iyo ujuuradaydu ma ahaanin illa ala Allah alla weynadu shimoyaan ilaahay baa isa saaro oo isku waajibiyay aniga idinka waxba idin kama rabo oo umirtu waxaana la amray an akuna inaan ahaado min almuslimiin kuwa muslimiinta hoggaansamay ayaan aniguna kamid ahay fakadabuhu way beeniyeen fanajjaynaahu nuux waa badbaadinay wamanna waa badbaadinay macahu nuux raacay fil fulki doontii ayaan ku badbaadinay wajacalnaahum waxaanu ka yeelay khalaa'ifa dhulka kuwa u hadha ayaanu ka yeelay waaqraqnaa waanu halaagnay waanu hafinay aladiina kuwii kadabuu beeniyey biaayaatina aayadaha yaga fandur bal fiiri kayfa sida kaana ay noqotay caaqibatul mundariin kuwii loo digay ee digidii qaadan waayay bal sida ciribtoodii noqotay eeg thumma dabad bacathnaa waxaanu diray min bacdihi nuux dabadi waxaanu diray rusulan rusul ilaa qowmihim qolyahoodii baanu u diray iyo qoomamkoodii fajaa'uuhum rusushii waxay ula yimaadeen qolyihii loo diray bilbayinaati xujooyin cadcad famaa kaanuu may noqonin qolyaha rususha loo diray يؤمنوا كوا رمايا بما وحي كذبوا أي بينيين به سجى من قبل مركي ريسيبا وحي أي بينيين كوك عن سيدين قدال أنت إسوان سدين كما سور رجوع كذلك سدا سلا مذا أيان نطبع أحرينا على قلوب المعتدين كوا حد قد بي قلوب تودا حد قد بياش قلوب تودا سدا كوا بالله قلوب تودا الله حري أيون بالله حريا suuraddu horeynu u soo tilmaannay waa suura makiya asaaliibta ay dadka wax ku dhacsiinayso ee xaqa ku bayaaminaysana waxa ka mid ah baynu usluubul qisas
قصص أيا سورة كوي من دون إلى صدحة نبي الله نوح قصديسي مع قومه إيه نبي الله موسى وهارون نبي الله موسى ونبي الله هارون مع الطاغية فرعون قصة دي هي قصة سورة نبي سورة والله مقعدري وقصة نبي الله يونس مع قومه صدح قصة أي سورة آخر كذا إنه كارك دوناتين وتيه رئيسي كان نبي الله نوح iyo qisada de tolkii dhaxmartay meel fara badan waa ku soo maray meel fara badan waa ugu tagi doonaa halkaas waa kooban tahay qisada khulaasadeeduna waxa weeye nabiyullaahi nuux waa rasuulkii oo horeeyay ilaahay subhanahu wa ta'ala u soo diro basharka marka nabiyullaahi aadam laga yimaado isagiyo nabi aadamna waxa u dhaxeeyay 10 qarni 10 qarni dadku way toosnaayeen oo muslimiin qumman bay wada ahaayeen wax gaala ah kuma jirin 10kii qarni markay gabagabay yihiin ayaa waxa bilowday dadku inay ilaahay qeyrkii caabudaan oo shirki sameeyaan oo cid aan ilaahay ahayn ay caabudaan oo wax moodaan inay leexdaan oo dadkaasi xaqi ka leexdaan oo ilaahay cid aan ahayn caabudaan oo sanamiyo caabudaanna waxay ka soo bilaabatay xabaalo iyo dad dhintay xabaalahooda wax la mooday hadda doonaysa inaad ogaato albaabkii u horeeyay ee wax shirki la yiraahdaaba adduunyada ka soo galay waa qof dhintay xabaashi midka ogow waa qof dhintay oo laga daba tagay wax la mooday weey nimankan iyagoo say u toosnaayeen dad qumman oo saalixiin oo ay jecel yihiin ayaa dhintay kadibna shaytaanka ayaa wuxuu u waxyooday kuwii marka madaxweynta odayaashii dadkii saalixiinta ahaa ee idinka midka ahaa ee dhintay haddaad sawiradoodii mid walba sawirkiisii intaad samaysaan suura isagii u eg aad meel dhigataan oo kaliya aad ku xasuusataan cibaadadoodii iyo khayrkoodii iyo wanaagoodii si aad ugu dayataan arsaasi ma fiicna halkaas shaydaanku ka soo galiyay shaydaanku markii hore kuma oran fil bidaaya dhagxan samaysta aad caabudaan ma oranin kuma oran laakiin wuxuu yiri waxaad samaysataan sawiro iyo qolfoof dadka saalixiinta ee dhintay u eg oo aad markaad aragtaan khayrkoodii ku soo xasuusataan wallahi waa tala fiican suuradii baa la sameeyay nin walba wadaad walba suura isagii u eg ayaa la sameeyay meel baa la dhigay waa qoladaasi way inqiraado waa dhimatay kuwa caruurtoodii baa shaydaanku wuxuu ku yiri marka aabayaashii dhintay ilaahyada caabudo jireen waa kan halkiiba laga caabuday halkiiba lagu caabuday cibaadadu in sanam la caabudo halkaas ka soo bilaabatay markaas nabiyullaahi nuux la soo diray ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka ugu yeedhay 950 sano ayuu dacwadaas qaylinayay oo kor iyo hoos ba u dhigay inni da'awtu qawmi laylan wa naharan falam yazidhum du'aa'i illa firara wa lahum asrartu lahum israra kor baan ugu dhigay oo hoos baan ugu dhigay oo habeenkii baan u qayliyay oo maalintii baan u dhawaaqay nabiga 950 sano dhawaaqay ee haddana dadaalka inta leeg bixinayay ee habeen iyo maalin qaylinayay ee kor iyo hoos ba u hadlayay suuratu hud bay nagu tagi doonaa iyadoo la leeyahay wama aamana ma'ahu illa qalil 950 sano wama aamana ma'ahu illa qalil in yaroon baa rumaysay markii saa madax adaygaas ee u taag waayay دواك يا حباري ربي إني مغلوب فانتصر ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا هل كان تحدي وحلا يراهدو سمينيا أو حوي مررك قار دعوة أصل وحا إن أسلوب دبع سن لغو بندقو وقفك سيق بولو ولا هدلو لكن مركي مغطو قفك سقف حق دونا إنو سنهين وقف حق قادنا يا أنو أهين marka qaar in lagu adkeeyo taxaddi lagu sameeyo la xabaaro way imanaysa sida nabiyullaahi nuuxba uu sameeyay si sharkiisa adduunyadu uga raysato marka waxaynu qisada ka qaadanaynaa aayaadka waxaynu ka qaadanaynaa koow marka qaar sidaan horaba ku sheegay dacwada si yara adag in loo jeedin karo oo nabigu wuxuu leeyahay idinka iyo sanamiyada caabudaysaan ba intaad isu tagtaan oo arintiina aad si fiican uga tashataan oo ka go'aan gaadhaan bal waxay ku sameeyay hadda wax ugu sameyn kartaan wuxuu tusayaa inuu wuxuu rabaa inuu tuso
waxa uu aaminsan yahay diintu aaminsan yahay ilaaha soo diray si ugu kalsoon yahay waxa iyagu ay aaminsan yihiin ilaahyada ka dhiganayaan siday ducafada u yihiin aanay waxba cidna u yeeli karin inuu tuso ay doonayaan oo anigu ilaahay baan ku tirsanahay oo ilaahay baan tala saartay bal car waxa aad haysataan aad wax moodaysaan bal idinka iyagu inta soo raacdan bal wax yeela marka mararka qaar way banaan tahay in dadku luqada ay fahmayaan lagu la hadlo haday luqada layinka ay jilicsan fahmi waayaan tayib waxaynu kala ka qaadanaynaa sida ay muhiimka u tahay qofka daaciga ah sida ay muhiimka u tahay qofka daaciga ah inuu iska ilaaliyo wax kasta oo keeni kara dadku inay dacwada uu wado u fahmaan inuu dan iyo maslaxad gaar ah ku wato waxa quraanka ku badan halkan inoogu jirta ma la as'alukum alayhi ajra fama sa'altukum alayhi min ajrin war waxaba yaraatee danaho aniga dacwadan iyo khayrkan aan idin sheegayo igu jira ma jirto wax mushahar iyo dhaqaale aan idin kaga doonayaa ma jirto taa ogaada waxba idin kama rabo waxaad kala ogaataa aniga laftaydu waxaan aan idin ku yeedhayo qofka ugu horeeynaya sameynaya ayaan ahay idinka oo kaliya oo idin malihi waxaan sameeya aniguna waan idin la sameynaya taa macnaheedu waa maxay waxaan idin ku yeedhayaa wax xun haduu yahay de anigu ma sameeyano nafteyda ma halaagin mar haddaan baydin kula jiro de waxaan idin ku sheegayaa waxaan idin ku yeedhaa waxa khayrka waa umirtu an akuna min almuslimiin watlu ku akhri alayhim korkooda naba nuux nabaysi warkiisi ku akhri id xilli warkii ku akhri qaala uu yiri liqawmihi tulki ku yiri yaa qawmi tulkayow in kaana haduu yahay kabura mid weynaaday calaykum korkiina maqaami nagaanshahayga iyo joogideyda aan joogo fiikum dhaxdiin iyo tadkiiri waaninta aan idinku waaninayo bi aayaatillaah ilaahay aayadihiisa fa'ala allah alla korkiisa tawakkaltu tala saartay fa ajmi'u go'aamiya way go'aansada amrakum taladiina go'aansada taladiina ururiyo go'aansada wa shurakaakum ma'a shurakaa'ikum kuwa ilaahay wax la wadaajisteen iyadoo idin la jiraan thumma dabatana la yakun yusan ahaanin amrukum taladiinu yey noqonin calaykum korkiina ghummatan mid qarsoon oo aan cadayn wax cad go'aan cad qaata thumma dabatana ifdu ilayya igu fuliya waxaad go'aansateen wala tudhuruni hana ikaadinina marka wuxuu tusinayaa sidoo ilaahay ugu kalsoon yahay iyo waxay caabudayaan say ducafada u yihiin fa inta wallaytum hadaa jeesataan fama sa'altukum idin ma weydiisan min ajrin wax ajra idin ma weydiisan wax ujura in ajriya ujuradaydu ma ahaanin illa ala allah alla korkii mooyaan ilaahay baa taa damaanad qaaday ininka waxba idin kama rabo oo umirtu waxaan la amray an akuna inaan ba ahada aniga qudhaydu min almuslimiin inta hogaansatay diinta raacday muslimiinta mid kamida marka waxaad meesha ka fahmaysaa ila nabiyullaahi aadam ila al'aan diinta xaqqa ee ilaahay uu raalida ka yahay nabiyadana uu la soo diri jiray waxa la yiraahdaa islaam dadka raaxsan waxa la yiraahdaa muslimuun inna ad-diina 'inda allahi al-islaam marka diintu waa islaam sharaa'icda kala duwan sharaa'icda iyo ahkaamta hoose ee farciyaadka ayaa kala duwan laakiin diinta iyo usuusha diinta diimahoodan iska wada waafaqsanaya طيب فكذبوه ويبينين نوح وبينين فنجيناه وان بدبادين نوح ومن وبدبادين معه نوح معيساها وراعي رمي في الفلك الدونت ايانو كبدبادين وجعلناهم وحانو كيالي تدكال بدباديي ونوح يعد رعدي خلائف دولك كوا او هري او دولك دحري بانو كدغني واغرقنا وبابنا وهلاغني ووهفني الذين كوا كذبوا بيني باياتنا ايادها يغا فانظر فيري كيف سدا كان اي نقطه عاقبه المنذرين kuwii loo digay ciribtoodii say noqotay fiiri marka meesha waxa aad ka fahmaysaa digista oo la qaadan waayo ciqaab ilaahay baa daba yaala dadka waa loo digay ciqaabkuna la iskaga soo dajin inta loo digay oo rasuul loo soo diray ay rusushii beeniyeen rusushii markay beeniyeen kadib ciqaabkii ilaahay baa ku yimid thumma ba'athna waxaanu diray min ba'di nuux dabadi waxaanu diray rusul farabadan ayaanu nuux dabadi diray ila qawmihim qawmamkoodi ayaanu u diray fajaa'uhum rusushaasi waxay ula timi qawmamkoodi bil bayinaati xujooyin cadcad
نبي الله هود نبي الله صالح نبي الله لوط نبي الله شعيب نبي الله إبراهيم غيرهم لوط أنبياء سورة عرف إنك كسام رسي سود بيالين فما كانوا مين قنن قليهاس نبي الله دري ليؤمنوا كورهم أيه بما حق كذبوا أي بينيين به سجى من قبله رامبا مركوه رسيسي بينيين أيوم بي كل انتانو كذا لما يصون قنن كذلك سيدا نكون قلوب توضع طابعني أيان نطبع طابعنا أقفلنا على قلوب المعتدين حد قد بياش قلوب توضع مركا قفك حق هدود diido waxay dhaxashaa in lagu oo ku madaxadaygo waxay keentaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala hanuunka inuu ka xiro inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin la yahdi al-qawma al-kafirin la yahdi al-qawma al-fasiqin kadhalika natba'u ala qulubi al-mu'tadin falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wa ka ثم بعثنا وحنو درهم من بعدهم رسوشاس دبدود وحنو درهم موسى نبي الله موسى وهارون إلى فرعون يا ندره وملئه قلتشوغيسي كويسي ملئيسي أما قليهيسي madaxweyntiisii bay oran jireen biaayatina aayadaha yagi ayaanu la diray sagaal aayadood baa la siiyay suuratul a'raaf aynu ku soo maray fastakbaru waa iskibriyeen waa isweynayeen wa kaanu waxay ahaayeen qawman qolo mujrimiina dambiilayaala qoliyo dambiyada waa weynaystay bay ahaayeen falamma jaa'ahum markuu yimi alhaq haqi markuu uga yimi min cindina annaga agtayada qaalu waxay yiraahdeen inna haadakani la sihr weeye mubiinun iskacad waa sixirnimadiisuna iska caddahay xaqi iyo waxyigi ay sida ku yiraahdeen iyo mucjizaadkii aayaadkii nabiyadu la yimaadeen qaala muusa wuxuu yiri ataquluna ma waxaad ku oranaysaan lil haqqi haqqa ma waxaad ku oranaysaan lamma jaakum markuu idin yimi sihr ma ku sheegaysaan السحر سحر مياه هذا كني وهذا العصوبة بالوضي السحر وهذا الكموسى السحر سحر مياه هذا كني ورمكنا السحر والحال لا يفلح إسغان الليبانين با الساحرون سحر رولياش ما وحنا الله إبا سحر إيضاني سحر رولياش بالليبانين أنا قلنا سوني أقول استيدك أتكادما قالوا وحيد هذه أجيتنا ما waxaad noola timi ajiitana ma waxaad noogu timi litalfitana saad nooga jeediso amma wixii wajadna aanu helay calayhi korkiisa iyagoo ku sugan aabaana aabayaashayo oo watakuuna ay ku sugnaa ay idin sugnaato lakuma labadiina ay idin sugnaato alkibriya madaxnimaduna iyo amarti boqortooyaduna ay idin sugnaato fil ardi dhulka dhaxiisa wama nahnu basanihin anagu lakuma labadiinan bimu'miniina kuwa idin rumaynaya taa ku abshira marnaba idin rumaysan mayno oo idin raaci mayno waqala fir'aun wuxuu yiri utuuni keena ila kaalaya bikulli saahirin sihroole dhamaanti caliim cilmi badan sihroolayaasha hala ii soo ururiyo talada in lagu la taliyo horeen u soo maray فلما جاء السحرة ساحرينتي مركي إيمادين قال لهم موسى وحكيري ألقوا تورا ما أنتم وحادينكو ملقون تهينكو توريا بل تورا وحادينكو تورا يسان وحادا يسان تورا إيجا أنا سؤال شقليو يري ما أديك توريا مس أنك أيها تورا أول من ألقى فلما ألقوا مركي تورا ولهودي يدنقدهودي مركي تورين iyo xadkahoodii qaala Muusa wuxuu yiri ma jiitum waxa la timaadeen ma shayga ay ladii midkan jiitum la timaadeen bihi isaga as-sihr weey ruuxana la timaadeen sihr weey ee mucjiza maaha inna allaha allana sayubtiluhu wa burin doona maxaa yeelay inna allaha alla la yuslihu ma hagaajiyo oo ma islaaxiyo amal al-mufsidin kuwa mufsidiinta ee dhulka kharibaya amalkooda ilaahay ma islaaxinayo idinkuna kuwaasad ka mid tihiin ويحق الله إلهي وسجيا أو عدينا الحق حقا بكلماته كلمته أيوك عدينا ولو كره هب النعان المجرمون تنبيلياشو هب النعان فما آمن مرمين لموسى مرمين إلا ذرية
ذرية عرور من قومه أما أبط من قومه تلكي كأهادي مويان تلكي كمذا مويان على خوف عبسي كركد حالي كسوغيهين عبسي ذا سو أما ذرية ذا سو على خوف عبسي كركد كسوغن أما حالبة اللي هو نكردي ولا سفيه على خوف عبسي كركد حالي كسوغيهين من فرعون يكعب سنيان إيا وملئهم مدحيوين تودي أن يفتنهم إنو كفتنايو فرعون إنو كفتنايو دين تودي إنو كفتنايو وإن فرعون لعال مد إسكو كبريو إسكو وينيوي في الأرض لوك الحديثة وإنه إساقو فرعون ويه لمن المسرفين كوا حد قد بي حد طلابي أيو كمدي هاي حدود ورنبو طلابي وأنك يدي أنا ربكم الأعلى وقال موسى وحويدي يا قوم تلك يوم إن كنتم هداتهين آمنتم كورمي بالله ألا فعليه ألا كركي ستوكلوا تلصارتا إن كنتم هداتهين مسلمين كوه قان سمي أو رن ربهان أو إسلامي هداتهين إلهي تلصارتا فقالوا حيد هدين على الله ألا كركي سأون أيان توكلنا تلصارنا ربنا يا ربنا ربك نو لا تجعلنا هنجيل فتنة نوجدين للقوم الظالمين قولهم ظالمين waxay ku fitnoobaan oo intay ka adkaadaan oo ka qaalib noqdaan ay ismoodaan inay saxan yihiin oo ku fitnoobaan ilaahu naga dhigin wanajina naga kori birahmatika naxariistaada darteed min alqawm alkaafiriin qoliyahan gaalada waxaanu waxyoonay ila Muusa waxaanu waxyoonay wa akhihi walaalki an tabawwa uga diyaariya liqawmikuma tulkin بمصر waxaad uga diyaarisaan buyuutan guryo uga yeela waj'aluu ka yeela buyuutakum guryihiinana qiblatan daati qibla mid saaxiib oo qibla leh ka yeela si aad ugu tugataan waaqiimu tusiya as-salaata salaada hagaajiya wa bashir u bishaare al-mu'miniin mu'miniintana u bishaare baa nabi Muuse lagu yiri inta ku raacdeena u bishaare qaala Muuse wuxuu yiri rabbana ya rabbana rabbigana innaka adiga ayaa aatayta siisay fir'auna iyo wamalaahu madaxyaweyntiisaba ziinatan qurux wax la isku qurxiyo iyo amwaalan xoolo fil hayati dunya adduunyadan hoosayta badan dhexdeeda ayaad ku siisay rabbana rabbigana liyudillu si ay u baadiyayaan في النهاية أما عربتودي وحي نغطي ليضلوا سيئوا باضييان وقالوا ميان عن سبيلك جيد كاغا سيدتك وقالوا ميان ربنا يا ربنا ربك النو أضمس بابي على أموالهم حوله ذا إله وتر واشدد حد على قلوبهم قلبي ذا إله حد وفلا يؤمنوا يعني رمين حق يعني رمين حتى يروا إلى أي كأركيان العذاب الأليم عذابك حنوشين تبضا قال وحو الليلي قد أجيبت والله أقبلي دعوتكما دعاديني والله أقبلي أنما كاس حوارتين فاستقيما توسناد اللبذي النبا ولا تتبعاني هراعنا سبيل الذين كوي وددوا لا يعلمون أن وحبؤجين كوا جدكوا هراعنا نبي الله موسى عليه السلام يا نبي الله هارون يا فرعون يا قوم كيسي قصة آد بي قرآن كوسو نغنغتا بل وقصة أقص نقط كبدن قرآنك القرآن وجور مدة بدنيه وأنا قصة نبي الله موسى والنبي مجلس وقش يجست بدنيه قرآنك أنت تشارع نبي الله موسى مجلس قرآنك لو شيء نبي لو شيء متشرو سببتنا وحوي نبي يدي عيسى مركلي ما ضد النبي الله الصادري wuxuu ka mid ahaa nabiyadii ugu soo sokeeyay xaggan ugu soo xigay xagga nabigeena kaleey salaatu wasalaam ugu soo xigay diintiisuna ilaa iyo de laga soo gaadhay nabiyullaahi Muhammad kaleey salaatu wasalaam waxay ahayd diin muxkama ah oo sugan oo shaqeynaysa ay ahayd marka meelo fara badan baynu ku soo maray qisadiisa haddana insha Allah taala meelo fara badan ayaynu ugu tagi doonaa si kooban ba halkan qisadan iyadana loo soo bandhigay marka insha Allah waa dul maraynaa waana ta taabanayna fawaa'ida ku jirta markaan kor marayno insha Allah
ثم دبد بعثنا وحانو دري من بعدهم رسوشا دبدود وحانو دري موسى نبي الله موسى وهارون إلى فرعون بانو دري وملئه مدحيوين تيسي كل تشوك تيسي قال واحد كفهمسا فرعون iyo madaxdaas nimanka la shaqeynay meesha ay ka gaadheen toqoyaanka iyo kibirka iyo xadgudubka iyo qoqa meesha ka gaadheen ilaahay subhanahu wa ta'ala laba nabi isugu daray laba nabi baa ilaahay subhanahu wa ta'ala isugu soo daray iyadoo laba nabi la isugu daray hadana mucjizaadka iyo aayadaha ugu badan la siiyay waliba hadana may waxba kaga ma baydhin وكيل إلهي سبحانه وتعالى هلاقي بابي بآياتنا آياتها يجب أن أدري لبن النبي أولي وأن يسكسوا عن معجزات فربضان وطا أي إلهي صدري فاستكبروا واسكبريين وكانوا وحيا هذين قوما قالوا مجرمين الدنبية واوي فلما جاءهم مركويمي الحق حق وحيي مركويمي من عندنا أنك حق يجا مركويمي قالوا وحي هذين إن هذا كان لسحر سحر مبين سحر نمدي سنعضها وسحر إنه سحر يهينا شك نجمة جرو قال موسى وحيري أتقولون ما وحد كورن إنسان للحق حق أن لا يمي ما وحد كشيء إنسان لما جاءكم مركويديمي إن هذا لسحر مساسة أورن إنسان أو جملة تقولون ذاس مقول كذي ومحذوف السحر هذا تنلقى ما ديك كرو maxaa yeelay nimanku inay ka aaminsan yihiin xaqan inay ku sheegeen sixir waliba ay yiraahdeen waa sixir inuu sixir yahayna kama shakisanina waa sixir cad ayaa daayada hore lagu soo sheegay warkoodu waa cadda warkoodu iyagoo saa u cadda in hadana la yiraahdo asixrun hada iyaga leh hadalkana iyaga leh iska hor imanaysa marka waxa weeye in la yiraahdo asixrun hadan wa hadadani waa hadalkii nabiga هذا الكودينا ماشي وكحتفن يهي وتقولون ذا مقول كذي وحتفن يهي معناه إن التركيب بنوح نغنى يعني أتقولون ما وحد كورنا إنسان للحق حق ما وحد كورنا إنسان لما جاءكم مركويديمي إن هذا لسحر ما هذا الكاس الحق كل شيء إنسان موسى مرك هذا الكخات السحر سحر مياه هذا كان ورما كان سحر ما وحنا الله يبقى سحر والحال لا يفلح إسقان الليبانين الساحرون سحر ولا يعش يدان الليبانين marka inaan idinka adkaado idinka qaalib noqday oo xujooyinkaygi iyo warkaygi saa u cadeeyay iyo inaan sixroolo ahay isma maaragtay isma qaadanaya qaalu waxay yiraahdeen ajitana ma waxaad noola timi Muuse لتلفتنا سي ما واحد نوغو تيمي لتلفتنا اي لتصرفنا سي اد نوغا جيديسو عما كي حقيسا وجدنا انو هلي عليه كركيسا ابانا ابياشيو ايغو ku dul sugan oo watakuuna ay idin sugnaato lakum labadina ay idin sugnaato al-kibriya oo boqortooyaduna idinka idin sugnaato aad madax noqotaan ujeedadaas leedihiin fil ardi dhulka dhaxiisa wama nahnu anagu manihin lakum labadina Musa Haarun bimu'minin kuwa idin rumaynaya warkaad sheeganaysan inaad rasuul Allah xaqi ka timitihiin manihin ma idin rumaynayno marka meesha waxaad ka fahmaysaa qofku wixii uu maqli jiray abiyaabo ta soo gaara inuu ku dhaganaado oo uu yiraahdo xaqqa iyo xaqqa toona uga beedmaayo iyadoon baa xaqa dhaqan fiican ma wax wanaagsan ma adigu xaqqa ayaa ku haga daliilka ayaa ku xukuma sheekhaagii adiga diinta ku soo baray iyo waalidkii ku dhalay iyo qof kasta oo kale oo aad ku kalsoon tahay hadday cadaato mas'alo kamida masaa'isha diinta inuu ku khaldamay oo laga yaabo in cilmigiisa inta geeyay ama maartay uu jahli kaga sugnaa ama maartay cid u sheegtay mas'alada aanu helin ama kutubtay ku qoran tahay aanay soo gaadhin qofkaasi waa macduur waana loo cudur daarayaa hal ajar baanu leeyahay hadii uu qaldamay hadii uu asiibana laba ajar buu leeyahay laakiin adiga maanta hadii xaq ku cadaado xaqad qaadanaysaa kana daadun tiraado caada la gooyay caada alla leedahay sidana xaalku aan jiray waligeey sidan un baan soo arki jiray maya
dhaqankaas waa qoladan warkay wadaan weey wama nahnu lakuma bimu'minin qaala wuxuu yiri fir'aun wuxuu yiri waqala fir'aun wuxuu yiri ituni ila kaalaya bikulli saahirin sihroole dhamaantii soo ururiya calay min cilmi badan sihroolayaasha kuwooda waliba cilmiga badan hal la soo ururiyo wa arsil fil madaa'in haashirin wa tilaydi arji wa aqahu arsil fil madaa'in haashirin isagiyo walaalkiiba Muuse iyo walaalkiiba inta arintooda u kaadiso magaalooyinka dad saaxiriinta kaaga soo ururiya dirso saaxiriinta lagu keeno nimankan waa saaxiriin laga dhiciyo halkaana waxaad ka fahmaysaa saaxiibka xun iyo bidaanada xun ninka madaxda ah had iyo goor dadka ku hareeraysan ee golaha la fadhiista ee shaaha la caba haday dad xun yihiin daa'iman talada xun kan wuxuu ka keenay waxa malaan lagu xiriirinayo markasta oo iyaguna mujrimiinta waaweyn kamid ahaa ayaa warkan la daba taagan falama jaa as-saharatu saahirinti markay yimaadeen waxa ka horeysay inay horta markii u horeysay ay yimaadeen inay Muuse inay Fir'aun la hadleen inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin warkaas la isdaafsaday intaan Muuse wala la hadlin Fir'aun oo horta nala heshiiba leeyid haddaanu ninka Muuse ka dhicino oo ka qaalib noqo ka adkaano maxaanu mushaqaayad iyo abaalgud maxaanu mushahar leenahay maxaana siinaysa na'am wa innakum la min al-muqarrabin buu intaas isku daray ajarka Allah la iyo waxaad codsataan waa leedihiin waliba saaxiibaday baad noqonaysaa kuwa aniga ila fadhiista ee iga agdhow ee aan maaragtay albaabkayga laga cilin baad noqonaysaa nimankiyo damaanad qaad ka haysta baa Muuse isku soo daayay موسى اسكسوداي قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين يجوا فكفكنايا ورموسى ماذا هو حاجة اللي شيء يتوريا مثل أنك عبلونا موسى وحيد بالسوداي وحد إنسان قال بل ألقوا بل تورا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ولو إيه حركه أي وحصامر مريان أي تورين dhulka ku tuureen inda sarcaad bay ku rideen dadkii meesha joogay saxaro ayuna naas oo hatta Muuse na kamid yahay Muuse marka yukhayalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a waxa bal mootiyayba Muuse xarkahan iyo ulahan meesha lagu daadiyay inay dhaqdhaqaaqeen ordayaan فأوجس في نفسه خيفة موسى وابع عبصديبا قال لا تخف إلهي إنك أنت الأعلى هبق موسى أديك أيا غالب نغني أديك أيا سريني مركز إلهي سبحانه وتعالى اللي وحي لدبت اضرب عصاك آيات محايا سورة طه أي نقول تجدون قصة يضاف فافاسا قال بل ألقوا فإذا حبالهم عصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. طيب ألقوا تورا ما وحا أنتم آتهين إذنكم ملقونك وتوريا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا تورا ما وحا أنتم إذنكم آتهين ملقونك وتوريا فلما ألقوا مركي تورين وحي قعمها كويستين قال موسى وحو يري هذا الله هو مركي دحمرين كذب ما وحا جيتم التي مادين به سقى السحر وسحر وي وروحنا التي مادين والسحر معها آيات هي معجزات معها وحنا نقول وطانا ومعجزات سحر هي معجزة مياه اسوجيه كره دقماتهن إن الله آيات سيبدله برندونا وحاد ماشا صور دوبتين إن الله لا يصلح ما يصلحيه ما هجاتيه عمل المفسدين كواس وخربية عمل كوده إلهي ما هجاتيه marka kuwa wax kharibaya de kharibaada dhulka la kharibaana gaalnimo ka soo bilaabata iyo ilaahay oo lagu gacan sayro marka mukharibiin baa tihiin idinka iyo ka idin soo diray iyo dhamaantiinba waxaan aad sameynayso dhanna ilaahay aad sameynaysaana ilaahay xaqiisii diintiisii dhulka lagu islaaxin lahaa ayaad ku hor istaagaysaan marka mukharibiin baa tihiin mukharibiinta warkoodana iyo amalkoodana ilaahay ma waxa weeye ma islaaxinayo wayuhiqu ilaahay wasugaya Allahu الحق واسوغيا بكلماته كلمته سايو كسوغيا او كلمته وكلمتها د الهي ugu waxyoonayo
قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا إلا وحي قاسا كسعدا كلمة هوي بكلماته كلمته سايو كسوغيا ولو كره هبكر هدان المجرمون تنبيلياشو هبكر هدان فما آمن مرهمين لموسى موسى مرهمين إلا ذرية موياني يعني ورثة من قومه إساق تلكي كأهاتي على خوف عبسي كركي حالي كسوينهين من فرعون أي كعب سنيان وملايهم إيا مدحيوين تودا كودا مدحدا أن يفتنهم إني فتنيان مرقا هالكا واحد كفهم آيادا واحد مودائن لقى فهميه موسى وحي رميبا إني من قوم موسى أهاي ربنا إسرائيل أهاي وقوم فرعون يقبديين تيبا إن قف بكر رميني سامية لقى فهميه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه علماء waxay ku tawjihinayaan maya fircawn dadkii Muuse dadkii rumeeyay reer banu Israa'iil waa ku jiray qibdiyiina waa ku jirtay oo fircawn islaantiisa ba kamid ahayd oo waxaaba kamid ahaa saxarada laftoodu qibdiyiin bay ahaayeen ma ay wada ahayn hatta hadii ku jireen reer banu Israa'iil may wada ahayn saxaraduna deynay nabiyullaahi Muuse rumeeyeen waa meel badan baynu ku soo maray فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين محل وجد مركا إلا ذرية من قومه على خوف من في بداية الأمر مركي وجوه الرئيسي قبل إظهار معجزاته معجزاتي سوين تاني صو ظاهرين أو أوصل سحرة كغالب نقنين وحي الرميين راعي ريبن إسرائيل كمتشرين وحنش قبدين كمتشرين إن يروا ذريته ولي ودل يراه ريبن إسرائيل أي هاي توجيهات كلنا وإجراء أن يفتنهم وإن فرعون لعال مid isku kibriyay في الارض dhulka dhaxaysa وانه isagu la min المسرفين ta kuwa xad gudbay ayuu kamid yahay وقال موسى wuxuu yiri ya fircawn ya qawmi tolkayow in kuntum hadatihin amantum kuwa rumeeyay billahi alle فعليه alle korkiisa tawakkalu tala saarta in kuntum hadatihin muslimiin kuwa hoggaansamay muslimiina marka waxaad ka fahmaysaa ahmiyada ay leedahay xaaladdu markay adkaato qofka qaa'idka ah ummadda توجيهية على جربة المدة التوجيهية أو محنة أي كتير تحل كذا أو تلمامه أيال الدنيا موسى مركي وفرعون للشبيي صحدا معركة صحراء اللي قلت شبيي دوا كيف بلعب تعذيبك ربنا إسرائيل التعذيبية موسى يوحي الرعبة مركز ده موسى دت كيس الله الله فعلى الله توكلوا سورة حينكسوا مرة أعراف iyaga oo reer banu Israa'iil calaya oo Muuse ku calaya qaalu ya Muuse qaalu uudina min qabli an taatiyana wa min ba'di ma jiitana Muuse hadda intaada noo imaneen nabinimada sheegana waana la ciqaabayo waana la dhibayay markii nabinimo aad sheegtayna waabana looga sii darayba qaala أجيتنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جيتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون سيدي بين نقط طيب فقالوا وحيدا على الله اللي كركيسهم ما نتوكلنا ترسى علينا أمر هذا يساستاي يا ربنا ربنا ولا تجعلنا هنجيلين فتنة نوجدين للقوم الظالمين قلهم ظالمين قل وحي كفت نوبان هنجدين oo inay ku fitnoomaan say noqonaysaa deynay muslimiinta laayaan oo ka adkaadaan oo ka qaalib noqdaan oo ka dhigaan kadibna ay ismoodaan ba inay saxan yihiin مرضى المسلمين أي كفر حشة ونجينا نجكر برحمتك بسبب رحمتك نحرست هذا سبب تدنا واحد نجكر من القوم الظالمين قلها من القوم الكافرين قلها كافرين وأوحينا وحنوحينا إلى موسى وأخيه ولا الكيبة أن تبوأ وقد ياري وغيالا لقومكما تلكين بمصر مغالة مصر بيوتا قريو أما وضنك ماشي اسكندرية أما ماشي مركا أي دقنايين واجعلوا كيالا بيوتكم كريهننا وحد كياسان قبلة ذات قبلة من قبلة وجهده قبلة وجهان كيالا فرعون أي عقابي marka qof kasta oo Muuse rumeeya hal ciqaabay ciqaabtii marka say uga dhuntaan cibaadadiina la dhunta
qof walba gurigaaga intaad qibla ka samaysato meel aad ku tukato oo qiblada u jeeda qibladooda marka baytul maqdis bay ahayd qiblada u jeeda halkaaga ku cibaadayso cibaadada la dhuumo way marka waxaad ka fahmaysaa qofku de markuu marxaladaas soo gaadho de waxa weeye cibaadada iskaga tagi maayo gurigiisa iyo dhuumashu ku cibaadaysanaya dhuumashu ayuu ku cibaadaysanaya meelo fara badan dadka muslimiinta ah xoogaa marka la yara ama joojiye la yara dhibaateeyo waxa laga yaabaa inay salaadaba ka tagaan oo cibaadaba ka tagaan oo masaajidaba iska daayaan si aan loo soo dabagelin baa uga sheekeynay xilliyadii xaaladu adkeyd meelahan nin baa lagu sheegay oo leeyahay waxa tahay argagaxisay waxba tahay markaa warmaba tukada minda diintu mistay baa leeyahay waxa lagu yiri ayu diidcay bilaw markaas ay ka tageen oo yiraahdo baradu diinta caay ma ah iyagii kaxay wal ciyaad billah subhanallah ya harin adag way marka hadiiba shiqla iskaga dhigo gurigaaga iska gal ya salaada inta deyn lahayd gurigaaga iskaga tuko يا واجعلوا بيوتكم قبلة بالقولي نمكن كورينا كدكتا مساجد يميرا كنت كتان واقيموا الصلاة صلاة لكن هجاجية مع في ظل هذه الظروف يكون ظروف تكوتشرة هذا يا يقول واقيموا الصلاة صلاة هجاجية وبشر وبشارة المؤمنين مؤمنين تركوا صعوتنا وبشارة إن يقولوا يصدقنا أو نبكاس iyo durkaas laga dulqaadi doono waqala Musa wuxuu yiri rabbana ya rabbana rabbigana Musa marka halkan waa habaaraya fircawn iyo qoomkiisa ayuu habaarayaayo laba shay buu ku habaaraya ilaahay inuu caydeeyo xoolaha dhaafiyo iyo ilaahay inuu hanuunka u diido oo xaqaba ka indhatiro ayuu ku habaaraya oo soo iska hor iman mayso nabiyada ujeedada loo soo dirayba waa inay dadka xaqa ku hanuuniyaan oo dadka diinta soo galiya fircoonna wuxuu leeyahay Muusana wuxuu leeyahay ilaahay oo nimankan qalbigooda xidhad falaa yuuminu hatta yarawul cadaab alalim habaar budawada qabtay inaysan xaqaba aanay rumaynin mararka qaar way banaantahay mararka qaar qofka markay muuqato dhibkiisa iyo tacanudkiisa iyo madaxadaygiisa iyo jabaruudkiisa markay muuqato loo taag waayo ilaahay oo kan halaago na dhaafi waa la oranaya طيب وقال موسى وحي ربنا يا ربنا ربنا إنك أدق أي آتيت سيسي فرعون وملاه تلكي ملاه مدحيوين تيسب زينة وحلا يسكو قرحيه في وأموالا حوله في الحياة النولشن دحدي الدنيا هوسين تبضن ربنا يا ربنا ربنا ليضلوا عاقب لام العاقبة ليدا ليضلوا عربت الدنبسي وقباديان ضدك عن سبيلك جدكاك يعني حواليه آتي زي وحيو أديك سدين إني جدكاك ددك يسكور تاغانو كلميان ربنا مرهد يسيدن يالان ربك النو أضمس بابي أو تر على أموالهم حوله هذا الله بابي واشدد حد على قلوبهم قلبي ذودنا الله حد فلا يؤمنوا يعني الرومين با حتى حق يعني الرومين حتى يروا إلى كارك يعني العذاب الأليمة عذابك حنوشنيا قال وحوالي لقد أجيب والله أقبل دعوتكما دعوتنا يا بريدنا والله أقبل فاستقيما توصنادا ولا تتبعان هراعنا سبيل الذين كويتشدكو لا يعلمون أن وحوقين كقفك قفا وحوقين إنه ضبطك تو تقليديو ولا في عينيه لما أقول والله أعلم.